Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaal marka hore janaalkeena subscribe noo saar. Engineer Noor Abdulqaadir. Soo dhawaa walaal. Maanta waxaan ka hadlaynaa cryptocurrency. Cryptocurrency ugu fiican ee suuqa ayaan maanta ka hadlaynaa. Waxa ugu waaweyn ugu fiican suuqa cryptocurrency-da waqtigan jira waxaa mid ugu horeysa waa Bitcoin. Waxaa ku xiga Ethereum. Waxaa ku sii xiga Tether, USD Coin, Cardano, XRP, Solana, Terra, Dogecoin, Avalanche. Coinskana hadda best coinska ugu fiican waqtigan jira cryptocurrency. Marka faa'iidooyinka iyo khasaarada ay leeyihiin lacagaha cryptocurrency waxaa ka mid ah faa'iidada waxaa ka mid ah gaar ahaan Bitcoin waxay dad badani ay u arkaan in ay tahay lacagta mustaqbalka dhow bedeli doonta lacagaha caadiga ah ee aan hadda isticmaalno sida euro, dollar iyo pound. Marka waxay u arkaan hadda in la maalgashto waayo hadda qiimaheeda waa jaban yahay marka loo eego mustaqbalka. Marka hadda qiimaheeda hataa waa meel sare maraa, marka qiimo macquul lamu marayaa. Marka jabnaan oo hadda dhulka ma joogo, hadda ku dhawaad wuxuu marayaa 70 ayuu marayaa. Dad kalena waxay ku jecel yihiin lacagahan cryptocurrency ma maamulaan banks. Sida aan horey idinkugu sheegay, banks waxay markasta abuuraan sicir barar inflation. Qaar kale waxay la dhacsan yihiin blockchain technology oo ah mid si xad dhaaf ah aad hantidaada ugu ilaashan kartid adoona ka baqayn in laga dhaco. Intaas waxay ahaayeen faa'iidooyinka cryptocurrency. Khasaarooyinka ay leeyihiin cryptocurrency-gana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah cryptocurrency oo dad badani ay maalgashteen oo ayna filayaan in ay qiimo fiican yeelato mustaqbalka dhow. Inay saas noqon weydo niyad jab badan halkaasna ka dhasho. For shorter term crypto investors, qaar badan way wajihi karaan waayo dhaqso ah waxaa markasta isku bedela qiimaha sarifka suuqa, taas oo khasaaro ka imaan karto. Waxay khatar weyn ku tahay deegaanka environmental impact. Dadka Bitcoin qaato mining waxay isticmaalaan koronto aad u badan. Cambridge University baa cilmi baaris ka sameysay halkan ka akhriso. Marka walaalayaal, meeshan baan kusoo koobaynaa qodobkeenii ku saabsanaa cryptocurrency. Marka waa inuu mar kale channelkeena subscribe noo saara. Soo dhawaada like iyo share iyo followna ku dara insha Allah.